bismillahi raxmaani raxiim idinlahantiin daawadyaal meel kastoo naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee telefishinka qaranka oo aad hadahan oo kale ka daawataan shaashada telefishinka qaranka toddobaadkan xubno aad u xiiso badan oo aad u macaan ayaan daawadayaa idinku haya barnaamijka ee ku soo dhawaada soo qabta dhacdada ugu horeysa barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkan dhacdadaan idin soo qabanaya waa mid aad u xiiso badan isla mar ahaantaana ah dhacdo khatarteeda huwan waxaynu ku soo qaadan doonaa nin raba inuu buugan dhacdooyinka la yaab kale in uu kaga qayb galo oo uu ku soo bandhigo in uu gaari ku kaxeeyo laba taayir oo qura isla mar ahaantaasina isagoo gaarigaasi labada taayir ee qura ku wada uu gacantiisa ku ururiyo daasado loo dhigay wadada bal haddaba isku dayga ninkan ayaa waxaynu eegi doonaa isagoo gaarigaasi labadaasi taayir ee qura ku wada bal muddo 2 minit gudaheed ama muddo 2 minit gudaheed inta daasadood ee uu gacantiisa ku ururiyo dhacdadani waa mid aad u khatar badan bal ninkani inuu guuleysto inay wax khatari ka soo gaaraan intaba waynu eegi doonaa dhacdada ugu horeysa iyo barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kalena ila daawada Sven Erik ninkani lagu magacaabo ayaa isna waxa uu rabaa dhacdo cusub inuu World Genius Record-ka uu keeno oo ku soo bandhigo dhacdadani uu ninkani soo bandhigay ayaa waxay tahay inuu gaarigan uu ku wada laba taayir oo qura isla mar ahaantaana uu ku ururiyo daasado wadada loo dhigay oo isku jira masaafo yar oo aad u kooban dhacdadan oo ah mid khatarteeda leh ayaa waxaynu eegi doonaa ninkani 2 mirir gudahood isagoo gaarigan laba taayir oo qura ku wada inta xabadood ee daasada ah ee uu gacantiisa ku soo qabto wax khatari ma ka soo gaari doonaan ma ku guuleysan doonaan ma guul dareysan doonaa intaba goob joogayaynu ahaan doonaa ee aynu jaleecno dhacdadani The Volvo, a good dependable machine built like a tank and the ideal vehicle for driving on 2 wheels, I think. Now the rules behind this record attempt are extremely strict. The cans have to be set out on opposite sides of the track, measuring at least 3 meters wide, forcing the driver to zigzag across the track, requiring a maximum amount of skill. As you can see, Sven is a dab hand at this 2-wheel driving lark and must obviously enjoy driving his supermarket trolley, whilst he does his groceries in exactly the same way. That's 4 cans and 1 minute 20 on the clock. The car is in fact travelling at quite a pace. This is precision driving. indhuhunu daawadayaal weli waxay arkayaan sida taxadarka leh ee ninkani uu daasadahani isagoo gaarigan ku wada laba taayir oo qura uu uga ururinayo wadadan dhexdeeda bal aynu eegno gunaanadka. Steer would mean the car falling down onto its 4 wheels or even onto its roof and end the world record attempt. 8 cans collected, down to 50 seconds on the clock. He's doing a great job so far. I have a feeling it's a record in the making. 9 cans, 43 seconds. Let's go the steering wheel at the last second. Reaches out, grabs the can, pulls it back to the window. Ooh, a slight wobble there. Has he lost it? No, he's got it. Great stuff. Down to the final 30 seconds. 10 cans collected. Steadily does it. Less haste, more speed is the answer to this one. Like I know what I'm talking about. Great concentration. Superb clutching of the wheel. Look at that. All in a day's work for this man. Down to the final 10 seconds. 14 cans collected. How's he going to do? Is he going to break the world record? 5, 4, 3, 15 cans, 2, 1, 0. That's it. Stop the clock. Job done. He accelerates out of the 2-wheel balance and back onto all 4s. Congratulations, Sven. A new Guinness World Record. 15 cans retrieved in 2 minutes from a moving kan lagu magacaabo Sven Erik ayaa ku guuleystay muddo 2 minit gudahood in uu isagoo gaarigiisa ku wada laba taayir oo qura
uu gacantiisa ku ururiyo daasado gaadhaya 15 xabadood. ninkani ayaa sidaasi ku galay buga dhacdooyinka la yaab kale. aynu intaasi kaga nimaadno ninkaasi daawadayaal waxaad arkayseen in uu kaga rumeeyey himilooyinkiisii ahaa inuu marun ka noqdo dadka lagu qoro bugan dhacdooyinka la yaab kale. dhacdada labaad ee aan idiin soo qaban doono ee aan idiin hayaa waxay tahay dhacdo nin u dhashay wadankaasi Francisco isna uu ku soo bandhigayo in uu badda gudaheega isagoo saaran laashir oo isaga leeg in uu isku rogrogo qadar aad u tira badan ama muddo aad u dheer. bal ninkan ayaa waxaynu eegi doonaa isku daygiisaasi iyo inta jeer ee uu isrogo isagoo baashaasi yar saaran ee aynu fiirino dhacdadana daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa ninkan oo lagu magacaabo Julius Gelley una dhashay wadankaasi Francisco ayaa wuxuu rabaa dhacdo aan buugan dhacdooyinka la yaab kale aan hore looga dhigin inuu ku soo bandhigo World Genius Recordka. dhacdadan ayaa waxay tahay in isagoo laashkan yar ee uu saaran yahay wata uu badan dhexdeeda isku dhex rogrogo qadar aad u badan. bal haddaba ninka lagu magacaabo Julius Gelley ayaa waxaynu eegi doonaa isku daygiisana inuu ku guuleysto iyo in kale iyo inta jeer ee isagoo badani ku dhex jira uu isrogrogaasi sameeyo. Just getting himself into position now, and he's off. He's causing a serious splash. Looks like he's been attacked by a giant squid. There's so much splashing going on. Now, as you can see, this aquatic move requires not only a huge amount of upper body strength and balance, but to maintain the cartwheeling motion, a certain amount of speed is required in order for him to keep the kayak cartwheeling. It's all about momentum. Good old Jules, he's doing fantastically well so far. He's keeping up his momentum and nothing is going to get in between him and getting his soggy hands on a Guinness World Record. There he is, pretending to be a duck. Now for you kayaking fans, wali waxaynu daawadayaal la soconaa oo aad indhiina ku arkaysaan ninkani dhacdadan uu samaynayo ee uu badan gudaheega iskugu dhex rogrogayo isagoo laashkan yar wata. bal aynu eegno gunaanadka. 7.25 seconds, pretty quick if you ask me. Good old Jules is doing nicely, going strong. I imagine he's getting a little tired at this point though. Jules' target to beat is 35 consecutive cartwheels set by Koyo Moira at Yamanashi Lake in Japan. Is he going to do it? One last effort, one final push. Come on, my French friend. Get that Guinness World Record for you and for France. National pride is at stake. One last big effort. Dig deep, my friend. You can do it. We're all rooting for you. Keep the kayak spinning. Keep the momentum going. Power from the shoulders. He must have done some serious training for this. Oh, he stopped. Is that the end of it? Has he given up? No. There's a few more cartwheels left in him yet. He must be absolutely exhausted. Oh no, he's capsized. But there you have it, an incredible 50 consecutive kayak cartwheels and a new Guinness World Record. Julius Gelley waxa uu ku guuleystay oo World Genius Recordka uu ku galay dhacdadan ahayd inuu badda gudaheeda isku dhex rogrogo. waxaanu muddo gaadhaysa 50 jeer isagoo badda gudaheega ku jira isticmaalayana laashka yar ee ku fadhiyo uu isku dhex rogrogay. sidaasna waxa uu ku galay World Genius Recordka. aan soo qabto dhacdadan markan daawadayaal gacantaydii ku hayo aynu aadno wadankaasi Sweden iyo dhacdo cajiib badan oo wadankaasi lagu soo bandhigay kana dhacday nin u dhashay wadankaasi ayaa waxa uu soo bandhigay buugan dhacdooyinkana oo kaga qayb qaatay oo uu rabaa in uu lagaga diiwaan galiyo in uu riixo. aan soo qabto daawadayaal markana dhacdo ka dhacday wadankaasi Sweden nin u dhashay wadankaasi ayaa buugan dhacdooyinka ee World Genius Record ka doonaya inuu kaga qayb galo oo lagaga diiwaan galiyo in uu riixo amaba uu rogrogo taayir culeyskiisu gaarayo 420 kilogram. waa taayir aad u weyn oo aad u culus baynu oran karnaa. ninkani ayaa hadaba waxa laga rabaa in uu taayirkaasi riixo masaafo gaaraysa 20 mitir oo ah
toban uu sii riixayo iyo weliba 10 kale oo uu soo riixayo bal inta minid ama daqiiqadood ee ay ku qaadato taayirkaasi culayskiisu dhan yahay 420 kilogram ayaynu eegi doonaa dhacdadan ka dhacday wadankaasi Sweden daawadayaal ila jaleeca dhacdadan aynu ku soo qaadano ninkan u dhashay wadankaasi Sweden ee aad arkaysaan ee muruqyada waaweyn ninkani ayaa isna soo bandhigaya dhacdo ah in uu taayir gaadhiyo culayskiisu 420 kilogram ku dhex rogrogo ama uu ku riixo meel masaafadeedu gaadhayso 20 mitir ama 20 talaabo haddaba ninkan ayaa waxa la eegi doonaa waqtiga ugu yar ee uu taayirkaasi laba wareeg uu rogrogo ama uu riixo dhacdadan iyo ninkan u dhashay wadankaasi Sweden aynu jaleecno kilogram tire across a 20 meter course. That's 10 meters to one end, turn around, and 10 meters back the other. 10 seconds on the clock, onto his third flip. He must be feeling the strain already. That is one big tyre. But don't worry, Jorma is from a long line of strong men. His granddad was a strongman performer, and according to Jorma... sidaad arkaysaan waxa uu ku guda jiraa inuu taayirkan dhanka kale haddana uu celiyo oo uu u rogrogo bal aynu eegno inuu guulaysto. But back to the grandson. Yeah, Jorma's given that tyre hell. I think it's causing him a few problems now. Look, that must really be causing some muscle burn in those meaty limbs. Up to 45 seconds, you're nearly there. One final push. 50 seconds on the clock. He looks absolutely exhausted. Come on, my friend, don't give up now. Only a couple of feet left to go. 57, 58, 59. Big breath. 1 minute. It's up. He puts the knee under for support. He staples himself. It's up. Great stuff. It's cleared the line. 1 minute and 7 seconds. Absolutely amazing. Bit of spittle over the studio floor there. Nice. I bet he's really tired. Let's have a look in slow motion. Just having a few problems towards the end there, but loads of support from his two beefcake mates. That looks very, very heavy. Look at the strength in his shoulders. Mind you saying that, it looks like he's about to collapse. The judges look pleased. Yes, it's all official. 1 minute, 6 seconds to flip a massive 420 kilogram tyre across a 20 meter course. Well done, big fella, and a brand new Guinness World Record. dhacdadan iyo ninkan u dhashay wadankaasi Sweden ayaa World Genius Record-ka laga diiwaan galiyay ninkana waxa uu ku guuleystay in taayir culayskiisu dhan yahay 420 kilogram uu rogrogo ama uu riixo meel masaafadeedu gaadhayso 20 mitir waqtiga uu ku riixayna waxay noqotay 1 minute iyo 7 second ama ilbiriqsi sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale waxaanu ku guuleystay abaalmarinta laga helo buuggani anu intaas kaga nimaadno dhacdadaasi khatarta badnayd daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka khatarta badan ee ay halkan ka daawadaan dhacdada aan markan idin soo qabanaya waxay tahay dhacdo group la baxay dankris ama niman la baxay crazy dankris oo soo bandhigayo dhacdo aad u xiiso badan dhacdadani ayaa waxay tahay waxay rabaan iyagoo biiteenaya inay kubadda basketballka ka xareeyaan shabakheeda bal haddaba nimankan ayay waxaynu eegi doonaa 30 daqiiqo ama ilbiriqsi gudahood inta jeer ee ay iyagoo biiteenaya ay kubadda basketballka ay shabakheeda ka xareeyaan dhacdadana aynu jaleecno dhacdadan cajaybka badan aynu ku eegno groupkan ama boqoladan la baxday crazy dankris ayaa iyaguna doonaya inay soo bandhigaan dhacdo aan hore looga arag buuggan lagu kaydiyo waxyaabaha cajaybka dhacdadan ay wadaan ee ay halkan ku soo bandhigayaan ayaa ah in ay kubadda basketballka ay shabakheeda ka xareeyaan iyaga oo biiteenaya haddaba bal waxaynu eegi doonaa nimankani qadar gaadhaya 30 ilbiriqsi inta kubadood ee iyagoo biiteenaya ay ka xareeyaan shabakhani Gold, Nicole Ricard and Florian Januel, also known as the Crazy Dunkers.
They've got to do the most front flip slam dunks they possibly can in 30 seconds. Their current record stands at 15 forward flips. How is this lot going to fare? I really hope they don't miss, otherwise they're going to give themselves one serious headache. Up to 11. 10 seconds left on the clock. Look at them go. Certainly giving Michael Jordan a run for their money. Down to the last 5 seconds. I think they're going to do it. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. And congratulations, you crazy dunkers. 17 forward flipped with a slam dunk into a basketball net in 30 seconds. Groupkan lagu magacaabo Crazy Tankers daawadayaal sidaad arkayseen waxay shabaqani ka xareeyeen iyagoo biitiinaya 30kaasi ilbiriqsi gudahood kubada gaaraya 17 xabadood oo kubada basketballka ah sidaasna waxay ku galeen buuga dhacdooyinka la yaab kale. Dhacdadan aan markan idii hayo dhacdadani waxay tahay nin u dhashay isna wadankaasi Sweden ayaa soo bandhigay oo World Genius Record kan doonay inuu kaga qayb qaato dhacdo ah in uu afkiisa ka afuufo dab dabadeedna uu gaarsiiyo meel masaafadeedu aad u dheer tahay. Haddaba ninkan u dhashay wadankaasi Sweden ayaa waxaynu eegi doonaa isku daygiisani inuu ku guuleysto iyeen kale. Waxaynu eegi doonaa dabkaasi uu afkiisa ka afuufayo balal dherer ahaan inta uu gaarsiiyo waxa laga raba ninkaasi intaba kubjoog baynu ahaan doonaa dhacdadana ila daawada. mar kale iyo Sweden iyo dhacdadan ayaa waxaynu ku eegi doonaa ninka lagu magacaabo Henrik oo buugan ama World Genius Record ka isna keenaya dhacdo cusub oo ah in uu dab inta uu afkiisa ka afuufo uu dabadeedna gaarsiiyo masaafe aad u dheer oo koraysa. haddaba ninkan ayaa waxa laga rabaa in aanu ku hooseysiinin masaafe gaaraysa 2.6 centimeter. bal haddaba ninkan iyo isku daygiisan ayaynu eegi doonaa ee daawasho wacan. 6.5 meters, so it's a tough one to beat for our Swede. Let's see how he gets on though. Just preparing the equipment now, filling his mouth with some kind of petroleum liquid. Not a good alternative to mouthwash, but I'm sure Henrik knows that already. Right, into position. Cheeks ready to jet out a hot stream of liquid, and here he goes. 3, 2, 1, big blow. Good. Woohoo! That was quite a blaze. Fantastic stuff. Okay, second attempt. Back into position, much faster this time. Wow, that looks like a good one. Fantastic stuff again, and a big round of applause from the adjudicators. Let's have another look in slow motion. That was incredibly impressive. What's he doing now? Washing his hands in the flames? Oh no, he's just warming up. Feeling a bit chilly. Not the safest way to warm yourself up, but there we go. Not my record attempts. Anyway, who cares? I can now confirm that the second attempt from Henrik was in fact a scorching one. A full 3 meters, which means it's congratulations to him, a new Guinness World Record. dhacdadan uu soo bandhigay ninkani u dhashay wadankaasi Sweden ayaa waxa uu ku guuleystay oo uu gaarsiiyay dabkaasi uu afkiisa ka afuufayay 3 mitir. sidaasna waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka la yaab kale halkaana waxa uu ku mutaystay abaalmarinta uu buugan World Genius Record ku bixiyo. haddaynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi iyo ninkaasi u dhashay wadankaasi Sweden waxaad arkayseen inuu dabkaasi uu afkiisa ka afuufay gaarsiiyay meel dhererkeedu gaarayo 3 mitir iyadoo laga rabay inuu ugu yaraan uu gaarsiiyo 2 mitir iyo waliba 6 centimeter laakiin se uu kor u dhaafiyay. aynu intaasi kaga soo gudubno waxaan soo gaarnay dhacdadii ugu dambeysay iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale. dhacdada waxaynu ku soo qaadan doonaa 2 wiil oo ku tartamaya inay mootooyin ku dulka xeeyaan foostooyinkaasi oo aan si toos ah isku garab oolin balse isgarab yaala. bal haddaba waxaynu eegi doonaa khatarta labada nin soo wajahaysa ee ay ku tartamayaan kooda ku guuleysta inuu waqtiga ugu yar uu mootadaasi ku dul kaxeeyo foostooyinkaasi. talo wax dhibima ka soo gaari doonaan inta isku daygani ay ku guda jiraan. bal goobjoog baynu ahaan doonaa dhacdada ugu dambaysa iyo waliba barnaamijkeenan dhacdooyinka la yaab kale. dhacdadana waxaynu ku eegi doonaa labada nin aad arkaysaan daawadayaal oo ku tartamaya mootooyin
oo raba in ay mootooyinkaasi ku dul kaxeeyaan foostooyinkan la isdaba taxay isla marhaantaasina la yara kala weecweeciyey bal haddaba waxaynu eegi doonaa labada nin kooda waqtiga ugu yar mootadaasi amaba mootooyinkaasi ay wataan ku dul wada foostooyinkani bal aynu eegno ninka ugu horeeya iyo dhacdadani. Here we go into position and the clock ticks away up onto the first barrel. Here we go. First stop nicely executed, makes it look so easy. And he goes again. Great. Ooh, is that foot coming off? No, he's held it. Fantastic stuff. Great skill, 15.6 seconds. Nearly takes out the set. sidaad arkaysan daawadayaal ninkani waxa uu ku waday mootadani foostooyinkaasi qadar gaadhaya 15 ilbiriqsi amaba sakan bal aynu eegno ninkan kale ee la tartamaya isna inta ay ku qaadato inuu ku dul wado in uu ka badiyo iyo waliba in uu ka yareeyo waqtiga. So you're still in the lead. Come on Jürgen, you've yet to finish the course, mate. Let's see what you're made of. There you go, front wheel, back wheel. He's done it, he's back on track. And the second change done with real skill. Great stuff, well done mate. That must have been a quick time, 12.6 seconds. Right. ninka lagu magacaabo Churchan Hatter ee la tartamayay ninka kale ayaa isna waxa uu ku dul waday qadar gaaraya 12 ilbiriqsi waxaana uu kaga guuleystay saaxiibkiisii kale ee la tartamayay oo isna ku dul waday foostooyinkani 15 ilbiriqsi ninkan lagu magacaabo Churchan Hatter ayaa sidaas ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale. daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii iyo waliba gunaanadkii barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale oo aad toddobaad walba hal mar ka daawataan telefisyoonka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. barnaamijkan dhanka kamarada iyo lightinka waxaa inoogu howlanaa oo inoogu sugnaa Cabdi Cumar Jibriil anigoo Jamaal Axmed Naasir ayaa barnaamijkan idin soo saaray oo iskugu kiisoo dubariday dhanka editinguna waa Ismaaciil Maxamed Cakulle. tan iyo inta ka horeysa intaynu barnaamij noocan oo kala ah iskugu iman doono waxaan idinkaga tagayaa is aragti maqal dambe ka hor. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.